الخير أيان الله هاي ساك دور قضبة كلانو كهضلايا ودن كوحو باهي إن wax laga qabso dhalinyaradu waa inay ka hadashaa waxyaalaha hididila halka waxa la jooga engineer Yusuf oo ku soo taqasusay maamulka iyo maareynta engineer Yusuf waa nin aqoon-yahan dalkana wax badan ka garanaya saaka halkan buu ila jooga waxaan jecelahay inaan dhowr qodob ka hadlo xaaladda uu dalku marayo dhinaca doorashooyinka dhinaca sixir bararka iyo hawlo kale oo badan engineer assalaamu alaykum warahmatullaah soo dhawo barnaamijka engineer waa ku salaamaynaa alaykum salaam wa rahmatullaah wada aragtaa bir baa leeyahay saak inaan hayo wadiga ka birta ku yar qabanaya birta ku qabanaya waan gartay cabirka magaalada leeyahay waan gartay xaaladu marayaan cid kaaga warayso anoo imaamihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliland waxa ka dhacay hawlo fara badan baa ka socday ama dhinaca doorashooyinka ama dhinaca siyaasadda la isku haystay sidee baad u aragtaa hawsha mar hore dhameeyo dalka la meeray sidii uu ku jiray wax laga qabanaya ma jiro muusana wax ka qabanaya ma aha waan gartay marka nin walba kullu shay rajaa islaamay nin walba asalka ay ku noqon sidee baad u aragtaa muddo ku dhirtan jamhuuriyadda Soomaaliland maalmo ugu dambeysay golaha guurtida ku dhawaaqday maxaad arrinkaa ka leedahay adoo dhinaca siyaasi ahaan la ah oo ku jiray sanadkan qoladiisu sharaxay baarlamaanka adigoo maxaa dib dhac ku dhacay waa hawaysigaasuna waa laga habaysanaya shacabkani 3 sanad waa loo kordhiyay dadka iska samaraan 2 sano baarlamaanka lagu daray cabirka laga weynaysiin waxaan baarayna maxay soo jeedinaysaa ama siyaasadda way isbedeshaa way isu guurto maxaad halkan ka leedahay siyaasadda isbedeshay waxa laga leeyahay hunda dalka ninkaas ku xaraabisanaya dad loo doortay isagana waxba qaban lahayn mucaarad xoogan ma jiro mucaarad xoogan dalkan jiri lahaa baro wax ka qaban lahayn kaas wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo kamid ah inkastoo la moodayay wax taraf zero toosaan u nasay mucaaradnimadii tooskan aanay ka muuqan waa nin la yiraahdo aqoon-yahan laguma baahnina maanta waxyaalaha qaar waa salaam iyo Yusuf inta kaleba haddaan ka hadlo soo noqdo hawshan ku guda jiray ahayd hil qaran ban maanta wada wax la yiraahdo oo aan ugu hilin dhalinyarada bila amalka maanta boqolkiiba 99.5 dhalinyaradu waa bila amal maxaa sababay xukuumadii heereysay ka bixi lahayd anigu Saad Muuse dhan ma ay waxaan leeyahay ninka Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay sidii wax ka bedel baan leeyahay Saad Muuse wax wanaagsan iyo wax fiican baa leeyahay kursigana lagu waarmayaan leeyahay magaciina hajiraan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel joogto dhammaantiin waa in salaamantiin maalin wanaagsan ayaan leeyahay waano kulan dambe insha Allah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.